waa fanaan hore haddana ah sheekh weyn oo dadka wacdiya. FJ Xabeeb oo hadda la baxay Sheekh Xabeeb ayaa noqday sheekh kadib muddo uu fanka ku jiray. Waxa uu saaxiib la noqday masaajidda iyo goobaha diinta lagu faafiyo, halka markii hore uu saaxiib la ahaa heesaha iyo faasiqada. Haddaba safarkiisa fanaan ilaa iyo sheekh ayaan muuqaalkan ku faaqidi doonaa. Ugu horeyn follow bogan Xuseen Xaaji Xasan, muuqaalkana like saar siina share garee si Soomaalida dhan uu gaaro. FJ Xabeeb waxa uu ahaa fanaan taageero badan ku lahaa fanka. Waxa uu caan ku ahaa raabka, waxa uuna aad uga muuqday bahda fanka. Intii uu fanaanka ahaa waxa uu ku luqeyn jiray heesaha nooca qoobka ciyaarka loo yaqaan oo fanaaniinta ku heesi karta ay aad u yareed xilligii uu bilaabay FJ Xabeeb. Sanadihii 2015, 16 iyo 17 ilaa iyo laga gaaro 19 ayuu ahaa fanaan taageero badan ku leh bulshada ka hor inta uusan ka bixin fanka. Waxa uu intiisa badan ku noolaa Kenya xaafadda Islii, waxa uuna ka mid ahaa xidiga ku midoobay magaca xidigaha Islii oo ku heesi jiray heesaha qoobka ciyaarka ama raabka. Sanadii 2019 dhexdeeda ayuu fanaankii hore FJ Xabeeb shaaciyay inuu joojiyay fanka ama heesaha oo ay ku barteen dadka oo aadna ay u jeclaayeen codkiisa iyo qoobka ciyaarkiisa cajiibka ahaa inta uu fanaanka ahaa. Si toos ah ayuu muuqaal u soo hor fadhiistay xilligaasi isagoo sheegay inuu ka toobad keenay heesihii iyo faasiqnimadii uu ku dhici jiray sanado badan. Waxa uu sheegay inuu ahaa nin indha la'a waqtigaasi wixii ka horreeyay, geeri ama dhimasho iyo janno iyo naar midna maan ogeyn inay jirto ayuu yiri. Qoomameen iyo toobad kadib waxa uu bilaabay xilligaasi wixii ka dambeeyay inuu barto diinta. Waxa uu raacay wadaadada tabliiqa, waxa uuna oogay salaada, quraanka iyo cilmiga ayuuna fahmay isaga iyo saaxiibo ay iskagala yimaadeen fanka. Muddo kadib masaajidda ayuu ka bilaabay inuu ka wacdiyo isagoo la socda tabliiqa oo masaajidda ka wacdiya. Waxa uu gooyay saaxiibadii uu fanka ku lahaa oo fanaannimada wax weyn u sii arkayay. Marar badan ayuu fariimo si public ah iyo si hoose ugu diray asxaabtii fanka uu ku lahaa, isagoo u sheegaya in jahannamo ay u dambeyn doonto wax walba oo camal shaydaan ah. Fanaankii hore FJ Xabeeb hadda waa Sheekh Xabeeb. Waxa uu dadka ka wacdiyaa xumaanta isagoo khayrka fara. Dhawaan xilli la weydiiyay noloshan uu hadda ku jiro iyo tii fanaannimo midda uu door bidayo, waxa uu sheegay in mugdi iyo nolol xiran oo iftiin lahayn uu ku jiray xilligii fanka. Waxa uu sheegay in geeri uu ka xigo ku laabashada fanka ama heesaha. Dhammaan dadkii jeclaa heesihiisa, fankiisa iyo qaabka uu u ciyaari jiray ama dadka dhageysta haatan heesihiisa ayuu codsaday inay iska iloobaan. Heesahayga dhageysigoodu ayaan kaaga digayaa walaalkayga qaaliga ayuu soo mariyay baraha bulshada markii uu ka baxay waxa uu ugu yeeray nolosha mugdiga ah. Haddaba muuqaalka like saar siina share garee si fariintiisa ay u gaarto dadka dhageysta heesihiisa. Ku soo biir bogan Xuseen Xaaji Xasan si muuqaalo kuwan la mid ah aad u hesho maalin walba. Mahadsanid. waxay ku dhamaanaysaa waa qabriyada walaalayaal. Sana usoo meesha doonta joog, waxaad doontaa haw dambi walba gal, kalaamka doonta joog, waxaad doonta qaad. haddii walaalayaal waxa weeyaan Ilaahay ku soo laabato, Ilaahay waa Ghafuur Rahiim. Ilaahay wuxuu leeyahay fafiru ila Allah. Ilaahay wuxuu leeyahay Ilaahay alla soo ordo, Ilaahay xaqii hala soo ordo leeyahay walaalayaal. xaqii shalana xaqii Ilaahay ma ka cararnay, maanta xaqii Ilaahay ku cararayna. inuu Ilaahay ma ka imaanay walaalayaal. Ilaahay waa Ghafuur, waa mid dunuubta dhaafo weeye. Ilaahay wuxuu leeyahay qul yaa cibaadiya alladhiina asrafuu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jamii'an innahu huwal ghafuurur rahiim. dambi walba la imow, waxa doonto la imow. haddii Ilaahay aad shirkinin oo Ilaahay si dhab u imaado oo u timaado, Ilaahay waxa weeye dunuubta uu dhaafaya walaalayaal. markii ana rajad beelin, rajada walaalayaal waxa weeye walaalayaal waa shay qaali ah. Ilaahay wuxuu leeyahay rajad beelin ana hayy buu leeyahay, ana la yamuut buu leeyahay, ana dunuubta dhaaf buu leeyahay. cirka dhulka doonto la imow dunuub, Ilaahay wuxuu leeyahay ana dhaafaya. inna Allaha ghafuurur rahiim, waa Ghafuur. sifada Ilaahay baa iska leh. anagu bini aadan baanaani, waan qaldanaa walaalayaal. habeen baynu qaldamaynaa, maalin baynu qaldamaynaa, waynu xamanaynaa, waynu heesaynaa, waynu macsiyaysanaynaa, kalaab baynu gelaynaa, gaal baynu raacaynaa, waxaan doonana samaynaynaa inaguna garasho aan u lahayn. laakiin waxaad wadaa walaalayaal waxa weeye Ilaahay waa Ghafuur. Ilaahay waa Ghafuur. sifadaas maanta caalamku way taallaa. Ilaahay wuu muujiyey walaalayaal. waa ka wadna aragtaan dhammaantana waad aragtaan. taasna walaal waxay caddaynaysaa inuu Ilaahay yahay Ghafuur walaalayaal. gurigeena dhabta waa xabaasha walaalayaal waxa weeye haddaadan Ilaahay haddaadan rajaynin oo Ilaahay waxa weeye ka dhigto waxa weeye waa kolley waa lagu keeni kolley halka waa lagu keeni.